Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawadayaal waxaan halkan idinku soo gudbinayaa 10 rikoor oo dunida soo martay hase yeeshee la aaminsan yahay in dib dambe loo jebin doonin. Qof walba waxa uu jecel yahay in uu sameeyo rikoor ama wax isaga u khaas ah. Duniduna waxa ay ku kala qaybsan tahay waa kuma laacibka soo mara koonkan. Ma Pele, ma Maradona, ma laba Ronaldo, mise waa ciyaaryahan Messi. weli arintaas wax jawaab ah kama aysan soo bixin. 10 goolka ugu dheeraa ee la dhaliyo. Goolhayihii hore Stoke City Asmar Begovic ayaa galay boga rikoorada sanadii 2014 kadib markii uu dhaliyay goolkii ugu dheeraa ee ciyaaryahan uu dhaliyo, isagoo kasoo tuuray goolka kooxda Stoke waxa uuna ka dhaliyay kooxda Southampton. Goolkaas ayaa waxaa la aaminsan yahay in uu ahaa duufaan soo gashay garoonka. waxa uu ku safray masaafo dhan 91.9 mitir ama 301 feet 6 inchi. 9 goolkii madaxa ahaa ee ugu dheeraa la dhaliyo. Sanadii 2011 ciyaaryahankii wadanka Norway Jon Samuelsson ayaa dhaliyay gool bartamaha oo madaxa ah, waxa uuna ka dhaliyay meel u jirta shabaqa 58.13 mitir ama 190 feet 8.58 inchi. waxa uu u ciyaarayay kooxda Greenland. Samuelsson ayaa kubadaasi ka faa'iideystay markii uu goolhayihii kasoo horjeeday Thomas uu soo doontay madax si uu kooxdiisa u soo barbareeyo gool lagu lahaa, hase yeeshee waxaa laga dhaliyay madaxii ugu dheeraa ee kubadda cagta liska dhaliyo. 8 ciyaartii ugu roosaha badneed ee ka dhacda dunida. ciyaartii ugu roosaha badneed ee ka dhacda dunida waxay dhex martay laba koox ee ka ciyaaray horyaalka shanaad ee wadanka Argentina ee kala ah Sao Paulo iyo Victoriano sanadii 2011. Garsooraha ayaa wajiga koowaad ee ciyaarta waxa uu bixiyay 2 roose oo kala siiyay 2 ciyaartooy, hase yeeshee qaybtii labaad ee ciyaarta waxaa qarxay dagaal u dhexeeyay saraakiisha labada dhinac, ciyaartooyda iyo taageerayaasha, waxaana garsoorihii ciyaarta lagu magacaabay Robinho uu bixiyay 36 roose. 7 goolhayihii ugu da'da weynaa ee ciyaara kubadda cagta. Goolhayihii hore Isaac Hayik ninkii ugu da'da weynaa ee ciyaara kubadda cagta 5 Abriil 2019 kadib markii uu ciyaaray ciyaar dhameystiran. ciyaartaas oo dhex martay labada kooxood ee kala ah Mikavoni Ironi iyo kooxda Yowanda, isagoo jira 73 sano iyo 95 cisho. 6 ciyaaryahankii dhaliyay goolashii ugu badnaa ee hal sano. weeraryahanka kooxda Barcelona iyo xulka Argentina Lionel Messi ayaa soo gabagabeeyay rikoor jiray muddo sanado ah sanadii 2012 kadib markii uu dhaliyay 91 gool, isagoo ka jabiyay rikoorkaasi laacibkii hore kooxda Bayern Munich ee wadanka Germany Gerd Müller, kaas oo dhaliyay 85 gool sanadkii 1972. laakiin ninkan gaaban ee wadanka Argentina ayaa ku dhaliyay 91 gool sanadkii 2012, waxa uuna noqday ninkii ugu badnaa ee hal sano goolal badan dhaliya, isagoo u dhaliyay 72 gool kooxdiisa Barcelona halka 12 kale uu dhaliyay xulkiisa Argentina, taasoo ka dhigtay tirada guud ee sanadkaas 91 gool. 5 ciyaartii ugu goolkulaadka badneed. ciyaartii ugu goolkulaadka badneed ee dunida waxay dhex martay kooxaha kala ah KK Palace iyo kooxda Civics ee ka ciyaara horyaalka Namibia, waxaana la iska dhaliyay 48 goolkulaad. waxay ahayd koobka Namibian Cup oo dhacay sanadii 2015. ciyaarta waxay ku dhamaatay 2-2, laakiin kooxda KK Palace ayaa ugu dambeyntii ku badisay goolkulaadyo 17 iyo 16. 4 goolkii ugu dhaqsiyaha badnaa ee koobka adduunka laga dhaliyo. laacibka xulka Turkiga Hakim Sokor ayaa ku dhaliyay 30 ilbiriqsi ciyaar ay ka hortageen Turkiga wadanka South Korea, taas oo ahayd ciyaarta lagu soo baxay kaalinta 3aad ee koobka dunida sanadii 2002. 3 haltriigii ama saddexleedii ugu dhaqsiyaha badnaa ee ka dhaca dunida. sanadii 1964 laacibkii Ross Country ayaa sameeyay rikoorka dunida saddexleedii ugu dhaqsiyaha badnaa ee la dhaliyo, isagoo markaasi rikoorkaasi uu jiray 56 sano, waxa uuna ku dhaliyay 90 ilbiriqsi.
iyadoo laacibkaasi uu soo ciyaaray kooxaha kale ah Pittsburgh United, Wigan Athletic iyo York City. waxa uuna ka dhaliyay Newton County iyadoo ciyaartaasi ku dhamaatay 3-2. rikoorkii ugu badnaa badbaadin ah ee koobka dunida wareegii 16 ee sanadii 2014. goolhayihii wadanka Mareykanka Tim Howard waxa uu badbaadiyay 16 fursadood oo lagu helay wadanka Mareykanka. inkastoo ciyaartaasi lagu daray waqtiga dheeriga ah, Mareykanka ayaa loogu adkaaday 2-gool. goolkii ugu dhaqsiyaha badnaa la dhaliyo ciyaaryahan beddelku soo gala. weeraryahankii kooxda Arsenal Nicolas Banda ayaa sameeyay rikoorkan goolkii ugu dhaqsiyaha badnaa isagoo beddelku soo galay ciyaar dhex martay labada kooxood ee Arsenal iyo Tottenham, kulanka oo loo yaqaanay Northland Derby oo dhacay sanadii 2007. waxa uuna ahaa kubad uu soo qaaday laacibkii lagu magacaabo Cesc Fabregas, waxa uuna ku dhalay Nicolas Banda 1 daqiiqo iyo 8 ilbiriqsi markii uu beddelku soo galay ciyaarta. daawadayaal, intaas waxay ahaayeen 10 rikoor ay soo martay dunida oo la aaminsan yahay dib dambe loo jebin doonin. daawade, haddii aad nagu cusubtahay channelka subscribe noo saar, haddii aad hore u joogtana like saar muuqaalkan, wixii fikrad iyo ra'yi ahna qaybta comment inoogu reeb.